ku soo dhawaada barnaamijka Hindise qaybtan waxaa ku tartamaya ganacsiyada kala ah Mohan Stationery oo ay matalayso Zahur Bilan, HH Beauty oo ay matalayso Hani Maxamuud, Haqabtire oo matalayo Suleymaan Cabdiraxmaan, Hidadawr oo ay matalayso Iqlaas Maxamed. haddaba inta aanan bilaabin tartankan aan baranno guddiga garsooraya barnaamijka Hindise. عبد الحكيم محمد إسماعيل وحنا هاي أساسها يقدميها شركة حديد إندستريز جروب. حديد مربية هاي فكرة ما أنت نوع حيكمل هاي شركتها أبوه الرئية أما أبوه عندنا عبرتها وحصار كذلك هنا وحنكمل هاي كرسورياشة هندسة لما أنت ترتمياشة وحنور رجيني أقول مقعد دكتور عبد الرحمن حسن يوسف waxaan ahay aasaasaha Mira International Schools iyo Bulshakaab Clinic. hadda waxaan ahay madaxa waxbarashada Iris Hub iyo gudoomiyaha Cabdicaziz Youth Center. in ka badan 110 shirkadood baan 5 sano ugu dambeysay waxaan ka ahaa fikradahooda ganacsi garsoore iyo qiimeeye. magacaygu waa Dr. Idil Maxamed Cabdiraxmaan waxaan ahay aasaasaha iyo maamulka xarunta Kaafiya Center waxay u istaagtay inay wax badan ka bedesho dhanka shaqo la'aanta magaalada iyo qoysaska Soomaaliyeed guud ahaan. waxaa jirto oraah dahabi ah oo uu leeyahay Robert Collin oo leh guushu waxay ka imaataa isku darka hoola yaryar iyo joogteentooda. magacaygu waa Amira Aweys Abukar waxaan ahaa milkiilaha Amira Lab and Pharma waxa kale oo ahay online coach dhanka nutrition-ka marka ahaa ardayga waxaa jiray riyooyin aan lahaa taasoo maanta mira dhashay. waxaa jirta oraah dahabi ah oo oranaysa guul walba waxa ay ka bilaabataa riyo waxa ayna ku dhamaataa fulin. ka rumey riyadaada inta ay ruuxda kugu jirto taa oo mar walba igu dhiirigelin jirtay ka rumeynta riyooyinkayga. waxaan ka mid ahay aasaasayaasha Haqabtire Technical and Repairing Service. runtii kambanigan waa kambani farsamo iyo dayactir howlaha machiniska iyo dhammaan electronic devices ka qabta. waxaan balifeersanahay inuu kambanigan Soomaalida wax badan kusoo kordhin doono caasimadda iyo guud ahaan gobolada dalka. waa mahadsantihiin. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Axmed oo idin mahad celinaa tiimka Hindise iyo guud ahaan dhalinyarada ka soo qayb gashay. barnaamijkan waxaa la yiraahdaa Haqabtire Technical and Repairing Service. waa company service bixiya. service oo bixinaya waxaa ka mid ah consultation, repairing, maintenance, guud ahaan machiniska iyo qablaha electronic devices ka hadii ahaan lahayn AC-yada, kombiyuutarada, qasaaladaha, fridgeska, kombiyuutarada iyo dhammaan wixii la mid ah. challenge mapping-kan aragno waxay tahay waxyaabaha inta badan qalab kala isticmaala ciladaha ka imaada. ciladaha markii la xalay kadib waxa ka imaanaa in tayadii uu lahaa aan lahaanin. AC hadii la xaliyo qabowga laga rabo inuu san imaanin. kombiyuutarka markii hore cilada intaysan imaanin soo u shaqeeyeen waxyaabaha noocaas ciladaha yani aan aragnay symptomska waxa ka mid ah controlka korontada naftirkeeda oo problem badan ka jiro. sidoo kale waxa ka mid ah yani ciladaha oo soo noqnoqda hadii AC la farsameeyo hadii fridge la farsameeyo ciladii inay ku soo noqdaan meeshii. waxaana uu badan oo root cause-ga kan waxa ka mid ah improper installation, inadequate maintenance iyo poor service. next products aan qaban isku kooban yihiin waxa ka mid ah spare parts ka dadka inaan ka iibino, consultation dadka inaan siino, installation oo isku halin kara inaan sameeyno, repairing iyo maintenance inaan wixii dayactirno aan joogteyno. sample waxaan soo qaatay user aan u shaqeynay laakiin inta badan userska waxay ku xiran yihiin inta badan da'dooda 25 ilaa inta ka sareysa. waxaan u fiirinaynaa qofka inuu qof habarta ama educated ha ahaada. waxaan nagala soo xiriiri karaa telephone numberka. waxaan u shaqeynaa dadka Muqdisho jooga. goolka inay helaan waxay tahay in wixii si sax ah aan ugu dayactirno. challengeska ay arkayeen waxay tahay in poor maintenance iyo repairing inaan ka cilad bixino
anagoo u sameynayna affordable price iyo reliable service laisku halayn karo. Next, circle-ka haqabtir waxay qabanaysaa in waxyaabahaas oo dhan ay si guud u cilad bixiso. haddii aan lahayd washing machine-ka, telefishinka iyo wax lamid ah, marka hore customer-ka asagaana soo wacaya, then anaga tagayna problemka baarayna waana xalinaynaa waana maintain garaynaynaa lastly. Waan jirnaa sababtoo ah servicekan magaalada aad loogu baahan yahay, that's why aan aad ugu shaqeynayna asaga. Next, pre-service-ka dadka waxaan u sameynaynaa marka ugu horeysa good communication iyo inaan u provide garayna information-ka. During service waxaan u sameynaynaa reliable service laisku halayn karo iyo last consultation inaan u sameyno. Post service waxaan u sameynaynaa maintaining inuu wixii gacan lagu hayo maadaama la cilad bixiyey ciladada ay soo noqon karaan inaan maintenance si joogto ah aan u sameyno. intaas nagu soo xasuusanayaan. Next, marketing conference aan isticmaalayno waxaa kamid ah social media advertisement, mobile application, video iyo website-yada. Value-gana waa prom service iyo transport service iyo 24/7 aan u shaqeyn karno habeen iyo maalin haddayna soo raadiyaan. Journalistka aan marayna website-ka, social media iyo mobile-ka wax lamid ah. Audiences-kay waa iska cad yihiin, waa dadka guryaha jooga ama institutions-ka sida hoteelada, restaurant-yada iyo meelaha la midka ah. Objective-ka aan fiirinayno waxaa kamid ah market share inaan yeelano, revenue inaan sare u qaadno, awareness-ka iyo inaan dadka competitive-ka kula tartanno suuqa. waxyaabaha KPI aan ku qiimeynayno waxaa kamid ah gross profit-ka, agreements-ka iyo reputation-ka. waxaan u fiirinaynaa waxaa kamid ah in 60% aan sare u kicino ganacsigaas, contracty agreements badan aan helno. Next, budget-ka aan xooga saarin waxaa kamid ah intaas working capital-ka, website development-ga, marketing-ka, equipment-ka, salary-ga, improvement-ga iyo rent expense-ga. intaas aan ku base garaynaynaa. Next, sale forecast-ga waa kana waxaan qorsheegaynaa sanadkii inaan soo saarno $7,690 oo sanadkii ah. anaga qaabkaas aan u shaqeyno. anagoo guud ahaan sanadka aan qiimeynayna intaas saleska aan bixinayno oo ah yani waxyaabaha spare parts-ka aan iibinayno iyo service-ka anaga aan rabna inaan qabano sanadkii ah. Next, waxyaabaha telefoonada iyo nagala soo xiriiri kara dadka ay nagala soo xiriiri karaan soo haqabtir mar walba waxay u taagan tahay in macaamiisha gaar ahaan xiliyadan oo kale kulelaha loogu jiro magaalada aad loogu baahan yahay in la helo company dhammaan wixii isku dayactiri kara iyo trust lagu kalsoon yahay haddii cilad ay ka timaado dib u xallin kara, damaanad qaadi kara wixii adeegoo dhan laga heli karo. aad u mahadsantihiin. soo dhawaada wixii su'aalaha. waa mahadsan tahay. Golden Circle-ka waydiisa maxay ahayd? waayadeedu waxay ahayd servicekan magaalada aad loogu baahan yahay, that's why aan suuq ugu jirno oo aan u shaqeynayno dadka. taamil isdhihi karaa waa wadkii maadaama wax kasta waa loo baahan yahay oo wax dadku business-yadan oo dhan wax loo wada baahan yahay, laakiin waay aan adiga kugu soo aadaya oo aan qof kale aadi waay. macnaha servicekan magaalada kama wajiro qof kale oo la aado oo toos loo dhammaan wax dhan wada qabanaya ma wajiraba. oo repairing center magaalada kama wajiraba oo dhammaan waxyaabahan technical service ka qabanaya ma wajiraba. Okay. Detailed first year budget-ka ma alaaba gadaysaan baa jira mise waa cila saaris kaliya? hadda saleska marka sales forecast-ga sheegaysay waxaad tiri sales number of sales-ka aan samaynayno, budget-kiina wixii aad gadi lahayd naguma aad xusin. qaybtaas kaliya ma qaybta kasii horeysaan ku xusay list of products and services aan bixin waxaa kamid ah spare parts inaan iibino ilaa wixii qalab in laga bedela loo baahanaa marmarka qaarkood. marka aad baa mahadsantahay. marka qalabkiisa inuu ku jiro ma ahayn budget-ka, startup budget-ka qalab intaa leeg baan soo gadanaynaayo. way ku jirtaa. way ku jirtaa miya? waa mahadsantahay. equipments baa tiri waa xisaabis intee ahayd? $900. hal markuu celeedo raaliya. waa mahadsantahay. bismillah axmed, waa mahadsan tahay. budgetka aad ku bilaabayso oo shaqada ku bilaabayso waa 10,000 soo ma? sanadkoo dhan markaad orodana 7,000 baad soo saaraysa. marka saad si leedahay hawshaas waana service sanad walba ma aha first year waa sababtoo ah sanadka koowaad adiga cost ku galaya products equipment badan soo iibinaysa. first year project budgetka ku galaya waa, laakiin sanadaha kale maada budget equipment wixii ay haysato then sanad kasta waxaa soo saaraysaa $7,000. waxaa kuu qoran shaqaalaha axmed adan raalli shaqaalaha waxaad siin doontaa 5,000 oo mushahara soo ma? sanadkoo dhanna 5,000 oo service aad soo saaraysaa. marka halkaas oo loos kuguma jiro.
sanadkii inaan 5,000 servicekaad qabanayso dhan markaad 12 bilood isku celiso waa 5,700 kan sanad walba ma yani sanad aad sida qiimeynaysa hada first year project waaye maya halkii bil 5 kun oo mushaar soo maahan soo sanadkoo dhan ku celaada tan oo budgetka sanadkii halkaas salariga waa 5,000 waana bisha koowaad soo markaad bilaabayso weyn bisha koowaad maaha mise waa sanadka koowaad sanadka 5,000 oo mushaar aad bixin doontaa 5,000 oo service inaad qabanaysa marka halkaa $700 baad waa sanadka koowaad waa imse qof 5 kun imse qof aad siinaysaan 5 kun waxaan siinaynaa ilaa iyo 5 qofood yani shaqaalaha waxaan u qaybinaa 2 qaybood kuwa permanent ah iyo kuwa part time ilaa 5 qof aan siin doonaa 5 qof aad siinaysaan rentiga 2,400 waa imse bishii waa $200 waa hal qol miya 2 qol 2 qol oo min boqol way waa mahadsantahay magacay waa Zuhur Liiwaan Axmed waxa ay aasaasaha Mahan Stationery insha Allah mustaqbalka waxaan rajeynaa Mahan Stationery meel fiican inuu gaaro oo ardayda Soomaaliyeed oo aad u caayo wax kasta ay u baahan yihiin alaab dhinaca stationery ugu noqdo bismillah magacay waa Zuhur Liiwaan Axmed waxa ay aasaasaha Mahan Stationery Mahan Stationery wuxuu shaqeeyaa qaab online sidoo kale waxa offer gareynaa education tools waxaan offer gareynaa ardayda also waxay aaminsanay education studies-ka anaga aan sameyn in our learning life-keenu aad muhiim u yahay sidoo kale normal life-kan kind of station aaro inay establish garee aad ayuu helpful u yahay student for future life-kooda mid xigto islaadka xigo waxaa soo sheegnay in maalkan oo Mahan station oo problem xaalada problemkaas oo hor u sii galno oo root-ka cause-ka aan waxaa soo dhan typical station oo solution gareynay like typical stationery waxaa si ah jira stationery yaal available aad uma ah ardayda waxa aad available suitable way office-ka micna alaabka qafiska oo xafiiska ay aad support gareeya waxa ka wadna in terms of design in terms of color sidoo kale waxa jira memo bodies-ka to do lists-ka planners-ka waxaas dhan ma laga hela ardayda meeshan hela low quality stationery ma ka dhan waxa jiro ee ganacsatada stationery alaabta keena xamarka muusoo sameey xagga laga soo dhoofiya soo xag ma laga soo dhoofiya alaabta ay keenaan waxa low cost way high quantity wax lagu soo high quantity alaab iyo low cost lagu keenaa mid xigta waxa okay list of my product here waa kana toban product ana availability staff waxa lack of awareness student yan baahidood micna aad uma ogo just way keenaan uu gal kara bis ay aaminsan laakiin gadasho ka bad wax bayaal badan u baahan yahay ayaa jirto list of my product here waa kuwan wash tape clipboard iyo waxaan mid xigto okay wuxuu dhexay doonaa 17 to 16 locationkiis Muqdisho jooga student waa lacagta waxa 25 to 30 high school university way goalkiis waxa inuu helo stationery status oo static ee qurux badan iyo inuu helo unique store to get a quality marketing system waxa noqon let's maximize our productivity together iyo bijkan waxa we believe stationery products basic needs inay u tahay waxbarashadeena mid xigto golden cycle can what waxa noqonaa we provide a stationery service through online and we offer for the students and how to unique ways to homemade work and good design and why how we want to make impact to our community at the same time ujeedada waxa in ay gaarno students aan maajgaran their expectation kooda mid xig بالسيرفيس waxaan aqoonaa social media inaan isticmaalno aan aadno meelaha dadkan ay hang out ku sameeyaan sida show waxay joogaan Instagram-ka TikTok meelaha alaabteen soo post gareena during service waxa inaan sameeyno providing a quality product and knowledge or educate inaan waxaan barno si loo isticmaalo tips and tricks productivity as kor u qaad leed waxaas inaan barno iyo inaan wax aad dhigeysan post service kan waxaan aqoon doonaa good customer service inaan dadkan feedback ay weydino inaan mahad celino good packaging aan u sameeyno thank you cards waxaasna ugu darno
market canvaskeena waxaa noqon doonaa inaan several ways isticmaalno si content marketing inaan sameyno in dadkaan alaabtan waaba gadatay maxaa ka faa'iidaya waxaas inaan u sameyno generalka isticmaal doona waa social media word of mouth iyo retail stores maadaama wax sameynaya retail stores inaad tagno buwaagtiin iyo waxaas agensiino u faafno targetkeena waa 17 objectivekeena waxaa inaa gaar more customer numberka aan ku cabirinayna waxaa inaa number of product aan sold gareeni number of customer aan gareeni iyo number of sale aan sameynay mid xigta waxaa paasiya retail stores budgetkeena waa kana mid xigta slide paasiya sales forecasting waa kana mid xigta Man station or online stationery or offer grade staffiska provide local media aesthetic and crucial for students is one of my sentence. waa mahadsan tahay total maniga aa u baahan tahay waa 245 waxa ku soo gelaya oo first year saleska ana waa $1,000 halka geed la 6805 waa geedkan kala sameeyna qol baxa laakiin total saleska waxa 6805 total saleska maxaa profit ah 6805 waa revenue soo annualka maxaa profit noqonaya marka laga jaro kharashaadkaasi waxaas 2000 baa laga jaraya 4000 baa soo haraysa waa mahadsan tahay haye zuhur aad u mahadsan tahay mahan saa noo sheegtay waxaa waaye online qofka waa loo deliver gareynaa adika ma dhiibaysiin mise deliveryga ayagaa qabaan ma delivery ayagaa bixiyaan dadka okay qofka $1 oo qalin oo kale markuu rabo inuu qaato kusoo qaadba $1 hadduu yahay ama hal bar delivery inuu $1 kale uu ku bixiyo macquul ma kula tahay inuu online kusoo dalbanayo mise goob uu aadaa isdhahay okay dadku waa u fududeeni laba option aan siinaa option waxaa aan walaal delivery waa diyaar haddii kale xaafadeeda ay umaanay aan meel caana deganaa dibka deganaa uu imaanaa meesha alaabta soo qaadan hadaa qofku ku imaado go and back aab ku sii darsamaysa lacagtu maya qofku waxay dhahaa marka jaamacad ka soo baxa mis wadaas anam soo maro mis qof iska seenaa badan ay xidhan qof iska seenaa meesha soo maraa haywaa dhaha isla xiriirnaa qofka alaabta badan ay qaasasa businesska badan ku bilaabaan meesha job salary-ga ahayd oo using person waxaa tiri $20 ilaa $30 soo ma hayn marka waa unemployed weeye 20 iyo 30 ka xataa ma soo gasho ardayda waa dad dad jaamacad iskuulaad dhigto waaye marka inta pocket money-gooda 20 ilaa 30 ku xisaabisa miyaa waa mahadsan ma package baad u iibsaa alaabtaada mise mid xabad hal xabo waxa aad koorka ku tahay ama aad ku fiicantay ugu badan maxaa waaye news oo alaabta iibiyo alaabtaada dhan shayga ugu socodka badan koolo washti wala koola la xamar lagama helo ana keeno adaa keento size-keeda intee leegtahay size small size large iyo xaasoo centimeter ku qiyaas kartaa waxa u gadaa saan xamar uu yar yahay koolada caadi la isticmaalo oo ku duwan yahay sax saan xamar maxaa lagu leeyahay koolada waxa la isticmaalo journaling ka sameeyay waxyaalahaas hadhow markaad warqadaha kala fujinayso warqadda ma jeexmay marka ma saan koolo waay ma qasa isticmaale size ka aragta jaranay dan waa ku dhigsanay mise daa buug loo maad qorinaysan dhaxda ka marinay way ku kala saaray warqadina ma ka jeexayso ma wax damage ku geysanayso okay yada kugu ii badan saylahan imsa ka iibin kartaa bishii meeqa xabaa iibin kartaa sales 20 iyo xayala xabadda meeqaasa marka xabad way isku xiran tahay 5 xab camal isku xiran tahay oo kala size kala difference colors saas oo kale macnaha cabirka xaddiga ugu yar inta siiso oo lacag aksiya $1 baraasiisa ama santa Zura mahadsan tahay su'aasha ku weydiinaya waxay tahay ma jira qorshe ah in online ka gurtido xarun aan leedahay inaad samaysatid way jirtaa dhac doonta insha Allah meel weyn aad ku doono hadoo ilaahay insha Allah hadda maadaama aad ku shaqaysid intee kaagala soo xiriiraan dadka Instagram TikTok okay waa mahadsan tahay kana mid ah tartamayaasha barnaamijka Hindisihiis Yaalabuur kuna tartamaysa fikradda ganacsiga oo la magac baxday H&H Beauty
businesskayga wuxuu focus ka saaraya gabdhaha asagoo u keenaya waxyaabaha ay u baahan yihiin haday noqoto bagska ay xiran lahayn ama beauty productska isticmaal lahayn muhiimadeeda waxaa waaye in gabdhaheena Soomaaliyeed ay ka maarmaan in banaanka ama dibadda wax looga keeno oo locally ahaan waxa ugu soo saara productiga ay design daneynayaan ayagoo waliba dooqanaya designka ay karabaan waxaan rajeynayaa in barnaamijkan ku guuleysan doono fikradeedana aan horumari doono ama santiin ganacsigayga waxaa la HNH Beauty waxyaabaha aan hadda ganacsigeena ku iibino waxaa waa online currently meel oo ma lihin hadda oo xarun ah so focuska xasaarnaa online maadaama adduunka digital uu sii noqonayo so challenge-yada iyo waxyaabaha markaa mapping ku sameyno waxaa ka mid ah qofka inuusan comfortable ku dareemin wuxuu xiranayo hadday noqoto designka uu xiranayo hadday noqoto materialku isticmaalayo waxyaabaha kale aragna waxaa ka mid ah availability-gu aad u yar waxa marka dalbatid oo kaleeto inaa helaynin oo kaleeto beauty productskan oo la isticmaalayo somehow environmentiga masuud gareynayo oo ku haboono okay productska ibi waxaa ka mid ah bagskaas oo loo yaqaan tote bag lip glosskaas oo asina handmade ah oo gacanteeda ku sameeyey daatoon waxaa la eyeliner kuwaas polymer kaliya allah waxaa laga sameeyaa dhagaha iyo faraantiyada kaleeto iyo bagskaas iyo somehow lasheska gabdhaha isticmaalaan iyo eyeliners colorka ah next haddii user persoonaheena galno waxaa ka dadka focus gareynayno wuxuu u dhexeeyaa agekooda 16 up to 35 badanaa waxay iskugu jiraan graduate iyo non graduate waxay looyin familkooda kaleeto locationka aniga focuska saareen Muqdisho waaye dadka waxay nagu soo gaari karaan through text oo like ina soo caano kaleeto waxa uu qofka customerkeena ama oo persoonaheena uu wilgareynaa waxaa ka mid ah inuu good quality products uu helo inuu quick response uu helo markuu order dalbaso qofku ciyo uu helo passion wax inuu helo challenge-yadu oo hadda face gareena waxaa ka mid ah inuusan helaynin wax uu qofka ka helay uu like uu rabo hadda inuu helo iyo qiimaha oo affordable ahayn qofka inuu qiimaha ku bato kaleeto low quality insa hor usoo sheegin waxyaaba oo qofka oo challenge gareynaya ka mid tahay aniga waxaa u sameynaynaa high quality product inaan siino aesthetic design qofka uu anfacaya inaan u sameyno qiimo oo loogu talagalay inaan ku sameyno goaler single-kan waxaa sameyna waxaa waaye bags aan sameynaa product inoo soo saarnaa sidaa u sameyno waxaa waaye inaan anaga creative aanane wax innovate gareyno producing aan sameyno dadka wax anaga gacanteena ku sameyna aan siino that's oo aan hadda ugu magac daran inay tahay Somali brand in anaga wax loo kaliya aan sameyno that's waxa aan sameynona waa anaga wax aan passion ku nahay aan jecelna sameyntooda aan rabno inaan dadka caawino inay helaan ama problem kas jiro inaan ka xalino serviceka u qabanayna dadka customerkeena bari serviceka waxaa ka mid inuu qofka markuu muuqaalka ama pictureka waxa uu arkayo bari serviceka inuu ka heli karo qofka customerka needskiisa inaa aniga ogaan karno u siino okay during service waxaa waaye inaa qofka markuu una imaanayo inaa quality products aan siino then waxa uu u isticmaala qofka kale inaa u sheego knowledge inaan siino then ina communicationkeenu u fiican yahay lastly post service-ka sameynayna waxaa qofka inaa u mahad celino inaa packaging qurxan oo sameyno some gift series ugu darno qofka uu kugu soo xasuusto uu kugu soo laabto iyo good customer service inaa qofka customer service fiican oo sameysid next marketing kafaska isticmaalayna waxaa waaye digital marketing inaa social media isticmaalno qofka maxaa la lahaa social media muuqaaladeena wax dhan ugu gudbino serviceka u qabanayna customer journey-ga intaas waaye muhiimadda aan ka leenahay waxaa waaye inaan customer fiican gaarno maxaa la lahaa oo aan sameyno sales badan anigan dadka inaga faa'iidaystaan productiga inay ka faa'iidaystaan next detailed first startup-keena rajeynayno inaan sameyno waa 6 months oo kala qaaday so maxaa la waxyaaba u baahanayna intaas waaye maxaa la sanadka 6 bilood ugu horeyso qiimahaas u baahanay 6 bilood kale tan qiimahaas u baahanay hadda sales forecasting sameyno next please waxaa rajeynaynaa inaan gaarno 6493 anigoo maxaa la oo ku jaangoynayno costigiina kale then saleska aan sameyno so intaas waaye waa mahadsantahay si wanaagsan baad usoo jeedisay barnaamijkaaga saad sheegtay businesskaaga waa online
pageka yaa ku maamula aan adaa maamula okay lacagta qaab nooceed ku heshaa marka kaga qaata dad markaad wax ka iibiso EVC way su-aasheeda xigta waxay tahay boorsooyinka aad samayso waxaad tidhi waa local made ma material cusub baad ka samaysaa mise waxyaaba lasoo isticmaalay material cusub ka samaysaa oo noocee ah mariyo mise mare waa laakiin way ka duwan yihiin marooyinka caadiga maxay kaga duwan yihiin way adag yihiin soo qofka hadduu wax culays ku qaado ma qabanayso laakiin marada ninka qafiifta ay way qabanayaan garabka ka dhex galaysaa okay oo jeans oo kale miya yeah kind jeaniska caadi ma laakiin sida jeaniska camal waa adagtahay okay laakiin soo culays ma ma kutsinaad maasantahay waa la gaari doonaa doontaa okay libista maxaad ka samaysaa tiri waa dabiici no libiska waxaa ka sameeyaa base oo iyada loogu talagalaa jiro then waxaa lagu daraa saliido soo qofka sida fururihiisa oo kaleeto moisturizer u siiso marka waa local iyaguna no saliidaha local waa laakiin base banaanka ka keensan mahadsantahay hani aada u mahadsan tahay businesskaaga online waaye saa noo sheegtay maxaa kaaga qorshaysan haddii lacalla internetka la waayo ama uu cilodo maxaa qorshe ah oo businesskaaga meeshas ma ku joogsanaa mise waxaa haysataa waxyaabo kale oo kusii wadi kartid before internet intuu imaanin ka hor dadka waxay isticmaali jireen somaan raadiyo maybe raadiyo ka xaysiin oo qofka numberku iga soo wacaa ama TV oo kale inay ka xaysiiyo ama word of mouth lagu gaarsiiyo okay waa mahadsantahay waa mahadsan tahay bosti serviceka wax yar managu celin karaa shaqada haddaa kor ka xasuusanaysa bost serviceka waxaa sameynaa inaa qofka communication fiican ama good service u sameeyo then packagingka inaa u qurxiyo good serviceka waa dhuyuurin soo maaha aa u sameynaysa adeega u sameynaysa waa inta qofka markuu alaabta kaa qaatagta waa isla hadashiin soo feedback waxaas ku siinaa soo maa sax user feedback weeye marka haye iyo then packaging aan sameynaa ama small gifts inoogu dara qofka isu xasuusta waa mahadsantahay waxaa kaloo soo saartaa first year budgetka si guud wax rantiga kuma jiro soo maaha budgetka may salary ku jiro bas salary 350 ama hal bil baamso 6 bilood no 6 bilood bishii 50 oo qorshay maadaama ani ahay oo 350 marka 7 bilood noqonaysaa no 350 ku qoran marka fiiri hal marka 300 oo kala ugu tala gashay salary miya no 55 ay noqonaysaa 55 bishii aad baa mahadsantahay aad baa mahadsantahay bismillah tani aad u mahadsantahay su-aasha ku weydiinayo waxay tahay maadaama online-ka aad ku shaqaynaysid waxaa jira caqabado badan oo yani dadka online ku shaqeeya ay la kulmaan tusaale ahaan qofkii inuu ku qanci waayo pictureka uu arkay ama videoga uu arkay iyo maxaa dhihi lahaa yani productigaaga marka kayfiya noocee ku qorshaysan inaad ku qancisid soo qofka aduu gabdho waxaa jiro oo dhahaan waa soo arkeenaa soo guriga imaadaan dan way fiirsadaan kadib day ka helaan way qaataan okay another question aan ku weydiinayo waxay tahay sida ognahay yani barnaamijkan businesskan adig keligaa ku tahay dhankii facebooka iyo maxaa dhihi lahaa social mediakii adigaa manage garaynayo productigan adigaa sameynayo already haddii maalintii yani dad badan ay kuu yimaadaan kayfiyada u kufar garayn kartaa maadaama keligaa ku tahay businesska currently keliga ahay dees oo waxaa jirta friends saaxiibtay oo like hadda maxaa la shaqa may la qabato maybe like inaa hadda customer fiican helo shaqadeeda badato inaa shaqada qaybsano kood haddii stakeholder waaye yani finance bisay bixisaa ama dhaqaale bisay bixisaa so haddii oo shaqada badato waa qaybsanayna niyadii ama waxaa u baahan inaa qof inaa shaqaaleysiiso maxamed cabdiraxmaan ganacsigayga magaciisa waa hididhoor hididhoor waxay qabataa waxyaabaha hidiya dhaqanka nooc waliba ah oo si farsamaysan loo sameeyay haday noqon lahayd dharkii haday noqon lahayd agabkii iyo inay dib usoo celiso waxyaabihii laga tegay oo hidiya dhaqanka ahaa waxaan rajeyn doonaa ganacsigayga inuu noqdo mid hirgalo magacayga waa ikhlaas maxamed cabdiraxmaan
ganacsigayga magaciisa waxaa waaye Hidadhowr Store. Sidaa hore idinkugu soo sheegay. Haddii aan ka gudbo Hidadhowr Store, ummad walba jiritaankeeda yacni waxay ku dhisan tahay yacni hidii dhaqankooda. ummad walba jiritaankeeda waxay ku xiran tahay sida u ilaalin lahayn hidii dhaqankooda. Hidadhowrna waa goob lagu nooleen doono, sidoo kalena lagu horumarin doono hidii dhaqanka Soomaaliyeed. Haddii aan ka gudbo general mapskeega waxaa waaye ganacsatadii oo xoogga saartay alaabihii dibadda laga keeni jiray in si horumarsaneen loo sameeyo alaabihii dhaqanka, iyo in ay hooyooyinkii helin waxbarasho iyo cid ku dhiirigeliso yacni xirfadahoodii inay heli waayaan. Maxaa la dhahaa symptomska waxaa waaye wax soo saarkii dalka oo hoos u dhacay, dhaqankii oo naga sii tirmaayo, dhaqamo shisheeye in ay nagu soo biireen, in hooyooyinkii xirfadleyda ahayd aysan yacni ay helin goobo ay geystaan yacni waxyaabihii ay iibinayeen markaaseeta. Adeega iyo alaabta agada adeega waxaa waaye xeero haddaa taqaaniin. Badanaa hadda Soomaaliya haddaa joogno aroos haddaa maqashid waxaa kugu soo dhacay gabadh inay xirato taash, in la jaro cake ama toorta saa u taqaaniin. Dhaqankeena hore wuxuu ahaa xeero in yacni gabadha arooskeeda ama la geeyo. Sidoo kale oodkaca, sameynta oodkaca, sidoo kale tolista dharka aroosyada oo hidiyo dhaqan ah, qurxinta goobaha oo ayadana ku saleysan hidiyo dhaqan, alaabaha ayadan dhowr nooc u kala qaaday, agabka cuntada, labiska hidaha, goobaha qurxinta maxaa la lahaa iyo udugi. Agabka cuntada haddaa guda galo xeero iyo fandhaal yacni waxyaabahaas magacyadooda leh kor ka taqaaniin oo maleena. Xeero iyo fandhaal, waxaa kaloo jira dhari dhagoole waxa la dhaho, sidoo kale dhiisha, masafta iyo salada, ashuunka, kasha iyo mooyaha, maxaa la xurbinta iyo kurbin. Sidoo kale labiska hidaha waxaa ka mid ahaa ama aan keenin ama waxaa waaye guntiino, subeeciyada, shaashka iyo ilyarta, sidoo kale shaalka iyo hoos guntiga ama macawiista saa u taqaaniin, dirac iyo garbasaar, kabaha ragga oo hidiyo dhaqan ayagana ka sameysnaan doono, iyo boorsooyinka oo hidiyo dhaqan ayagana noqon doono. Agabka qurxinta oo ayagana soo hoosgalaya markaaseeto ama keeni doono feynuusta, fareemyada hidiyo dhaqanka iyo maxaa la lahaa cawdii dirimaha ahayd, uduga oo ayadana noqon doonto luubaanta ama foox saa u taqaaniin, qoriqudaha, sidoo kale uunsiga iyo dabqaadkii oo waxyaabahaas lagu shidanayo oo design kala duwan ama noocyo kala duwan u sameysnaan doono. Qof customkeyga ah age-kiisa wuxuu noqon doonaa 25 iyo wixii ka weyn. Locationka waxaa xoog saaranaa Soomaaliya, jaamacad inuu dhigto. Dakhligiisa wuxuu noqon doonaa qofkaaseeto $100. Sidoo kale wuxuu noqon doonaa xaasle iyo iskaabulo. Xiriirka naga dhexeyn doona qofkaas waxaa waaye xiriir aad u fiican. Sidoo kale qofkaaseeto wuxuu heli doonaa darees oo hidiyo dhaqan ah, sidoo kale oodkac dhadhan fiican leh. Wuxuu u baahan yahay qofkaaseeto ama sababta uu markaas nagu soo raadsado oo noqon doonta ayadana inuu naga helo dhar hidiyo dhaqan oo si horumarsan u sameysan, iyo maxaa la dhahaa oodkacaas ama luqmadaaseeto ayadana maxaa la dhadhankeeda oo fiican yahay. Sidoo kaleeto waxaa jiri doono dad aan ka helin waxayna ugu heli doonin yacni dooqooda maba ahanba markaaseeto waxyaabaha hidiyo dhaqanka ama markaaseeto aan sameynayo. Dhaqanka yacni waa wax adig kaa turjumaya mar walbo, dhaqankaaga yacni aduu kaa turjumaa. Dhaqankana waa sumadeen. Haddii aan ka gudbo haddaa qaybtaan ka gudbo wareega dahabiga oo ayadana 3 nooc loo kala qaaday. Sababta keenta waxaa waaye inaan dib u soo nooleeno hidiyo dhaqankii laga tagay, sidoo kale inaynu sameyno goob laga heli karo alaabaha hidiyo dhaqanka, iyo alaabihii hidiyo dhaqan iyo carfis iyo dharkii hidiyo dhaqanka. Haddii aan ka gudbo adeega ka hor waxaa sameyn doonaa yani qofka inaan u diyaarino ama u sameyno alaabihiisa, marka adeegana inaan guddoonsiino adeegiisa
waqtiga ka dhacay cafwan waxaa gashaa budgetka first year budgetka horey ha usoo socodsiiyo sanadka ugu horeeyo yacni kirada bishii 400 sanadkii waxay noqonaysaa 4800 korontada bishii ayadan waxaa u qorsheen $100 oo sanadkii noqonayso 1200 shaqaalaha oo mushaarka ayadana oo 450 oo sanadkii noqonayso 5400 marketing oo bishii ayadana $100 sanadkii noqonayso 1200 total meeshaas waxay noqonaysaa 12600 kan ku xiga oo sales forecastiga waxaa filanaysa slide-ka ku xiga waxa aan filinayo agabka celcelis ahaan 200 oo product ahaan markaa gadaayo bishii waxaa waaye 3400 oo sanadkii noqonayso 40800 adeega oo yacni aan sameynaa ama serviceka oo ayadana noqon doonto bishii 375 sanadkii noqonayso 4500 total waxay isku noqonaysaa 45300 tan ugu dambeysay bishii aad gadayso 200 item soo saari kartaan ha okay halka item saad ku iibinaysaa marka يعني ويكل سريان العلس تون كبدنتها لكن طبعا صدقني أفر بقول ما تضبي تون عليه تضبي تون أوكي وهي هاي أفر بقول كتم باتي لو حنسين سلري قفة كوش غنية مشار waxay isugu jiraan qolada nadaafada iyo kuwa wax soo saarka iyo kuwa iibka wax soo saarka imse qof waa hal qof meeqa siinaysiin 200 xeerado kale meeqa siinaysaa xeero iyo oodka horta maxay kala yihiin xeeradii oodka waxay kala yihiin xeero yacni xilliga arooska la geeyaa sidoo kale ayadan waxay ka samaysan tahay timir iyo oodka marmar waxaa la sameeyaa timir iyo xalwad iyo waxyaabahaas in la geliyo mar walba yacni qofka wixii uu u baahan yahay ku xiran tahay xeerada ma agaba mise waxa la isticmaalo wax la isticmaalo waa okay waay بسم الله وما سنتها إخلاص وإيش أكويدينا وحيتها sida wada ognahay yani inta badan waa laga tagay waxyaabihii hidaha iyo dhaqanka oo waxyaabo badan oo waxaa soo baxaya casri ah dadka isticmaalaan badankood ayadoo ay tahay yani dadka inay howlfudeed ka dhiganayaan wax fudud inuu yahay camal marka maxaa qorshaha idinkaga aadan inaad dadka ka gediin barnaamijkeeni inay idin fahmaan yani qorshe noocee ugu degteen saa u fahamsiinaysiin businesskiina horta Soomaali wax ku kaliftay yani waxyaabo shisheeye inay isticmaalaan horta waxa keentay yani waxay ku raacaan design-kaas iyo nashqadaas quruxda badan iyo marka anaga hadii waxaan wax qurux badan ay noqdaan yani waxa aaminsanahay inaan soo jiidan karno oo na laga gedi karo marka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dardaarankii ahaa hore waa u qabteen waxaa idin raacinayaa stagekii labaad usoo gudubteen qofku nasiibka saamaxana stageka saddexaad u gudbi doonaa qofku caawinin nasiibkana muu khasaarin oo faashil waa lama dhihi karo ama hadafkuu rabi wuu gaaray ma ahan ujeedka muhiimadda waxay ahayd yani qofka inuu businesska ideada uu lahaa iyo inay tahay wax profitable ah oo maanta loo baahan yahay wadankii ka jiro gaab ka jiro uu yahay inaa fahamteen intaas oo proposalkaa soo diyaariseen intaasaa yani ahba inaa guuleysateen marka waxaa laydinkaga baahan yahay sabar iyo dhabar adeeg businesska sanadaha ugu horeeya waa maray kaa farxiso iyo maray ku farxad gelin weydo marka labada jaanibba inaa u diyaar garowdaan guuleysta idin leeyahay asalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullah waa guuleysateen indhihiina qurux baa ka muuqata waa soo gudubteen xeerkii labaad baa maraysaan waxaan isdhihi karaa oo anigu aan ku talinayaa haddii aad say tahay u dabakhdaan presentationadii kala duwanaa iyo challengeski kala duwanaa phase 1 wixii challenge-ga ahaayo laydiin diray phase 2 iyo phase 3 waa ka adkaadeen kullina waa soo diyaariseen oo 12kiinan chance hadda waxaa u hesheen xataa
phase 3 inaad casharkeedii iyo waxeedii haysataan oo aad diyaarin kartaan marka waxaan isdhihi karaa guusha meeshaan lagala hooyanayo cid kasta kala hooyanayso inay noqonayso 30 shirkadoodba aqoonta uga siyaaday sida business loo samaysto iyo sida la isku qiimeeyo iyo sida pitch loo soo jeediyo oo loo present gareeyo ma aragtay fikrad ganacsi oo aad leedahay taas oo aan laga baran ma aragtay jaamacadaha marka hadda waxaad u dhigantaan dad degree business qaatay sababtoo ah fikradiina iyo ideadiina luuqa idinla gasho waa ka soo saari kartaan oo aqoonteedii waa barateen iyo sida loo diyaariyo marka guul baan kulligiin idin rajaynaya waa mahadsantihiin aada u mahadsantihiin waxaa ku faraxsanahay inaa wareegga labaad aa usoo gudubteen taasna waxaa waaye astaan aada u wanaagsan waxaa rabaa 2 tal inaa idin siiyo midda koowaad adinka iyo tiimka idinka dambeeyaba ama kuwa idinka horeeyay ha noqdaan howl walba u qabanaysid inaad serious u qabatid oo si sax ah u qabatiin barnaamijka lagu abaalmarinaa ama maxaa la dhahay saaxiibka ayaa sameeyay ama qof kale inaad u sameynin qodobka labaadna waxaa waaye hawsha aad qabanaysid business hadee tahay ama wax kale hadee tahaybo juhdiga u mudnaa hawshaas inaad gelisid in ka badan juhdigaas geli hana joojin caqabad walba oo imaato yani inaad tartan ka hirtid caqabad waaye laakiin ha u arkin inay caqabad tahay u arag inay jaanis kale ee tahay oo energy aad kasii qaadid waalida idin daawanayo family idin ku xiran waxaa laga yaabaa xitaa ninkan waa soo dhigay meeshaan ama gabadhan waa soo dhigtee anagaa maalgelinayn oo kale in la dhaho aadaan u mahadsantihiin mid baan soo gocday ilaaway talo kale ah taladaasi waxay tahay 30 shirkadood laftigiinu waxaan rabaa shirkadihiinu markay hirgalaan page-ka aan ku wada xirannahay oo WhatsApp group-ka ah qofkii fikradiisu shaqayso kale hindisoo kale waxay idin sameyn doontaa insha Allah taala crowdfunding waxa weeye in ideadii businesska intii la refine gareeyo video sira laga duubo dadkaas magaalada jooga oo dhan ay wax isku soo dardaraan oo startup capitalkaagii ay ka caawiyaan fikrad noocaas aan ugu jirta oo annaga yaastaan insha Allah haddii sheekadan ay dhammaato ka bacdi inaan ku xijino aan qorsheynayno marka niyad jabka naga ilaaliya fikradihiinu inay socon karaan groupka aan ka dhex aragno insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim aad baa u mahadsantihiin waxaan halkan uga tacsiin doonaa walaashin hani oo walaalkeed maanta gacanka xaqdaran sababsatay intaa kadib garin 2 nin kama qosliso 30 qof baa haydan ama 30 shirkadood 18 baa hore u howlala u tagay 12 baa ku soo hadheen waa qasab in la xitagto gacaawa marka 6 kale ee guuleysan doontana waa mahadsantihiin waa ilayni hambalyeynaya 6 kalena waa dadaaleen 12 waxaan u kala qaadnay 4 3 afraad 4 kastana 2 qof baa laga rabay 4tii ugu horeysay waxaa ku guuleystay oo ilaahay u qadaray inay soo gudbaan H&H gabadhaan tacsiin hani iyo hida dhowr oo ay ikhlaas ka socotay waana mahadsantihiin natiijada haddaan raaciyo waa 73 oo hani ah 70.75 oo hida dhowr ah ikhlaas 0.5 baa lagaga tegay ninka la yiraahdo Axmed aad buu ra'yi fiicnaa adiisu fiicnaa 70.25 ay intaas isdheereen salaam alaykum gabadha kale waxa weeye waa 68.75 afwan I love you